Subscribe saar halkan si aad u hesho muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. xilliyada ka mid ah waxaa magaalo weyn ku noolaa nin la oran jiray Baalu. Baalu wuxuu ka shaqayn jiray warshad ku taalay magaaladaas, laakiin maalmo ka bacdi fayras ayaa ku faafay magaaladii. Warshadii uu Baalu ka shaqayn jirayna waa la xiray, shaqadiisiina wuu waayay. Baalu ayaana ku khasbanaaday inuu ku laabto tuuladiisii. Markuu tuuladii yimid ayuu soo aaday gurigiisii oo ay joogtay xaaskiisu, balse markii xaaskiisu aragtay way xanaaqday. Maxaad u soo noqotay? Ma waxaa jirtay baahi aad ugu soo laaban kartay tuuladan? Waxay ahayd inaad magaalada dhowr maalmood joogto, waxaana khasab ahayd inaad hesho shaqo kale. Maxaad hadda samayn doontaa adigoo soo laabtay oo shaqo la qabanayo ma jirto tuuladan? Maxaad u xanaaqday gacaliso? Waxaan go'aansaday inaan noqdo beerole oo aan ka shaqeeyo tuuladan. Maya inaad beero ka shaqeyso tuuladan wax faa'iido ah oo haba yaraatee ma lahan. Waana inaad ku laabato magaaladaadii oo aad halkaas ku noolaato, lacag badanna soo shaqeyso kadibna ii soo dirto si aan dhammaan waxyaabaha aan rabo ugu gato. Hadaladii ay ku wada hadlayeen Baalu iyo xaaskiisu waxaa maqashay Baalu hooyadiis. Hooyadii Baalu ayaana soo baxday iyadoo leh, gabar miyaad waalan tahay mise waad xanuunsan tahay? Waxaanse la yaabay markii wiilkayga guriga yimaado waxaad bilaabaysaa inaad la doodo isaga. Ma ogid miyaa in fayras ku faafay dunida oo dhan oo dadkii oo dhan tacbaan yihiin, adiguna weli waxaad ka walwalsan tahay lacag? Gabar wax ma kuu sheegaa? Naga aamus, ma doonayo inaan maqlo hadalladaada mar dambe. Fiiri sida afkeedu yahay. Kadibna Urmila waxay gashay qolkeeda. Habeenkii markii la gaaray ayaa mar kale waxaa istagaalay Baalu iyo xaaskiisa Urmila. Kadibna Baalu ayaa yidhi, gacalis iga raali noqo, beri ayaan ka tagayaa tuulada, waxaan ku laabanayaa magaaladii aan ka imid. Haddana iska seexo, anaa albaabka soo xirayay. Urmilii ayaa tidhi, aroortii baska ugu horreeyay ee magaalada ka baxaya waa inaad raacdaa. Baalu iyo Urmila ayaa wax si lama filaan ah u maqleen cod argagax leh oo kasoo yeeraya daaqada qolkooda. Maxaa weeye codadkan argagax leh ee aan maqlayo? Baalu ayaana fiiriyay daaqada, balse markuu daaqada eegay waxuu banaanka ka arkay raadad waaweyn oo sidii ruuxaan oo kale ah. Raadkan qof maaha sidaan filaya, waxaana u malaynayaa inuu yahay ruuxaan. Maya maaha ruuxaan, waa raad bini aadam. Waxyaalahaas aad sheegaysana keliya waa mala awaal. Baalu iyo xaaskiisa ayaana waxay go'aansadeen inay seexdaan, laakiin markay isdheheen seexda ayay waxay maqleen codad argagax leh oo ka imaanaya daaqada. Cabsi darteedna Baalu xaaskiisa hurdada way ka guudhay. Baalu xaaskiisa ayaana aragtay ruuxaan taagan daaqada qolkooda.